Lamine Yamal waxa loo arkaa xidig daayar wanaagsan waqtigan bandhig wanaagsan ka sameynaya garoomada. Dadka qaar ayaa aaminsan xidigan inuu ku daydo Lionel Messi una jecel yahay. Laakiin su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu ka jawaabay laacibka Isbaanishka ah. Barcelona xidigeeda Yamal ayaa wareysi u siiyay TV-ga rasmiga horyaalka La Liga kahor kulanka El Clasico la ciyaaray Madrid wuxuu ku tilmaamay xidig ku dayin jira arrinimadiisa. Dad badan ayaa aaminsan aragtida ah in wiilkan uu ku soo koray taageerada Messi isla markaana isaga dayday wax badan, laakiin si ka duwan taa Yamal ayaa u sheegay Neymar ayaa ahaa midkii aan ku dayan jiray yaraanteedii waxaan aad u jeclaa xirfadiisa. Lamine wuxuu noqday xidig soo jeeday indhaha taageerayaasha kubadda cagta ilaa uu gaaray heer la barbardhigo Messi. Kahor kulanka El Clasico u dhexeeyay Madrid iyo Barcelona, wareysi lala yeeshay ciyaaryahanka akademiyadda Barcelona wuxuu ka hadlay asalkiisa carruurnimo iyo caqabado badan oo jiray. Goolaliyaha ugu daadiyar, caawiyaha ugu daadiyar, ciyaaryahankii ugu daadiyar goolka dhaliyay ciyaaraha caalamiga ah, dhammaan warkooradu uu kulansaday Yamal bilowgiisa wax walba kubadda cagta ima qurxaneen sababtoo ah waalidiinteeda ma awoodin inay iibiyaan wax walba sida darteed culays badan ayuu ahaa waqtigaas. Messi sida iska cad aniga ahaan mar walba waxaan u arkaa kan ugu wanaagsan, laakiin runtii waxaan jeclaan Neymar ayuu raacay hadalkiisa. Waxaan jeclaan lahaa in lagu xasuusto taariikhda Barcelona nolosheeda kubadda cagta waxay ku xiran tahay Barcelona kooxdeedu waxay isiisay wax walba waxaan rajeynayaa inaan halkan joogo ilaa dhamaadka nolosheyda. Neymar ayaa ahaa kii aan mar walba ku dayan jiray ayuu yiri xidigga Lamine Yamal.